بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن داود الميل با كتبتان جنود دعلويدا معنى سبتي واحد يسوق ليسو أرغب ما أنت واشنتي بيشيس ديالا وقت لواتين سدح قضبه وركع عالم كله بجرنا وحكمدا كوادي عيارين هدي مثل سيقاطة صوماليا كقيب قشي أولمبيكدا كسعود dalka China saxaafada caalamka ugu afdheeray warbixin ka diyaarisay saxaafada leedahay magaceeda Reuters-ka ama TV-ga leedahay Reuters qodobada wararka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dowladda military abid ugu sareeyay oo la soo qaban qaabiyay oo ka dhacay dalka Syria gudihiisa magaalada Hama dowladdaasi wadajir waxa uu qayb qaatay dowladda Russia iyo dowladda Syria madaxweyne Putin oo saraakiisha dalka ugu sareysa dalka Russia ku booriyay inay ku socdaan gawaarida lagu sameeyo dalkaas kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaasha gobolada iyo saraakiisha ugu sareysa amniga dalka Russia dalka Congo oo lolaya markii mudaharaadayaal dalbanaya inay ka baxaan ciidanka nabad ilaalinta dalka u jooga xaruntooda ugu weyn ee magaalada Goma halkaas ay isku soo banaabaxeen ayagoo sheegay in ciidamada UN ay kaga guuraan magaalada Goma ama guud ahaan dalka Congo ay ka baxaan kadib markii afgambi uu ka dhacay dalka Niger ayaa Afrikaanku baraarugeen waxaan qodobada sidoo kale nagu haynaa bamkii weynaa ee lagu dhuftay dalka Japan oo maanta 78 guurada ka soo wareegtay waa labadii bam ee la kala oranayay Little Boy iyo Fatman wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Russia Sergey Shoigu oo asaguna booqasho ku tagay jiidda hore ee dagaalku ka socdo wasiirka waxa uu leeyahay saraakiil sare ee ciidamada Ruushka wuxuuna halkaas wasiirka lagu guddoonsiiyay gawaarida gaashaaman ee dhawaan laga qabtay ciidamada Ukraine waa gawaarida ay Mareykanka sameeyeen dowladda Swedish-ka sida warbixinta lagu sheegay daawayaal waxaan u gudgelin doonaa warkii oo faahfaahsan halkaan nagala socotaan waa barta YouTube-ka iyo TikTok-ga @24 post warka waxaan ku horumarin doonaa daawayaal warbixinta ku saabsan dagaalweynihii Mareykanka ku qaaday 1945 ee hubka nuclear-ka sida baan u gumaada oo ku dhuftay magaalada Hiroshima iyo magaalada Nagasaki magaalada Hiroshima kaligeed waxaa ku noolaa 350 kun oo qof waxaana ku dhintay 150 kun oo qof inkastoo dadka badankooda la sheegay in dhaawacyo soo gaaray oo dhinteen dalka Japan ayaa lagu wadaa in laga xuso 6 ilaa 9 bisha munaasabada sanad guuradii 78 ee ka soo wareegtay qaraxyadii nuclear-ka ee Hiroshima iyo Nagasaki kuwaas oo uu bixiyay nolosha isla markaasna dhulka la simay boqolaal qof ama boqortooyadii xukunka dalkaas haysay daawayaal dalweynaha China waa dal tiknoolajiyad iyo horumar iyo dhaqaale gaaray sanadii 1945 bishii 8 iyo bishii 9 ayaa laba bam lagu kala dhuftay magaalooyinka kala ah Hiroshima iyo Nagasaki waxaana labada bam magacyadooda kala haayeen Little Boy cunugii yaraa iyo Fatman iyo ninkii burnaa bamkaas oo khasaare fara badan u geystay shacabka Japan iyo guud ahaan dalkaasba markii labada bam ay halka ku kala dhacayna waxaa la soo gabagabeeyay dagaalkii oo Japaneesku waxay qaateen nabadgelyada sidoo kale daawayaal warka waxaan ku soo qaadan doonaa dalweynaha Congo gobolka bariga ku yaala boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee saldhigga saadka ee howlgalka xasilinta ururka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo marka la soo gaabiyo magaciisa leeyahay MONUSCO ee gobolka Goma oo dhaca bariga dalkaas si ay u dalbadaan in ururka uu ka baxo dalka MONUSCO ayaa muddo dheer ayaa lagu dhaleeceynay in dalka Congo inay awood u yeelan laadahay in ay nabad ku soo kordhiso gobolka ay dagaaladu aafayeen daawayaal sidoo kale madaxweynaha dowladda Russia madaxweyne Vladimir Putin ayaa asaguna la qaatay saraakiisha ugu sareysa dalkaas iyo gudoomiyaasha gobolada wuxuuna qada sharaf ugu sameeyay State House-ka maantay uu kala shiray in maartay gawaarida dalka lagu sameeyo Russia la wato wuxuuna ugu baaqay shacabkana sidoo kale dalka Russia in gawaarida la gato waana wax lagu faan karo in lagu faana gawaarida aan soo saarno
in la kaxeeyo gawaari casri ah ee soo saaraan raashinka elektrooniga kadib waxa Turkigu baabuurta soo saaray ee Togol yiraahdo magaciisa waxaan u muddo hadda baabuurta reer galbeedka iyo China bariga in laga guuray dhulkaas oo dhan iyo Japan ku sameyn jireen raashinkan hadda baabuurta fudud hadda uu laftigiisa shugnaanjeedaas uu guuray madaxweyne Putin shacabkiisa iyo madaxda dawladana ugu baaqay in baabuurta dalkiisa la kaxaysto wuxuuna sheegay in sharaf tahay iyo guul iyo wax lagu faanin karo in gawaari dalkeenu soo saaro la kaxaysto waxaan u gudagelin doonaa dagaal ka socday muddada dheer dalka Suuriya iyo kadib wixii ka dhacay halkaas iyo dowladda military oo ka soo galeen ciidamada Russia iyo kuwa Syrianka waxaana ka dhacay gobolka Hama waana meeshii ka bilowday kacdoonka magaalada Darca u dhoweed dowladda kaas waxa qayb galay ciidamada gaashaman Syrianka noocyada kala duwan ama badda ama cirda ama dhul haato sidoo kale Russianka ciidanka cirka iyo dhulka badda diyaaradaha droonka madaafiicda goobta taangiyada waxaana dowladdu ku mid aad u cajaab oo aad loo soo qabanqaabiyay oo muddo la sugayay arrinkan waxay dhabarjab weyn ku noqotay ama saxaafada ka soo wasaaradda gaashaandhigga Yuhuudda ama Israa'iil waxaana cambaarayeen dowladduskaas waxaana ku tilmaameen dandaansi dagaal sidoo kale reer galbeedka dowladaha Faransiiska iyo Mareykanka waxay ku sheegeen in Russianku uu wada hadda dagaalka Ukraine uu gudbiyay inuu maartay bariga dhexe ka wada colaado iyo Afrika daawadayaal waxaa muddo Russianku hadda madaxweyne Putin siyaasadii midowga Soviyeeti inuu qaatay oo rabo inuu soo celiyo sumcaddii midowga Soviyeeti ama Russia ku leedahay caalamka halkaas waxa lagu soo bandhigay ciidamo aad u gaashaman Syrianka kuwa Russia ciidanka dawladaha ka booda commandosta markay maartay diyaaraddu ka cado ama kuwa qumaatu ka ama diyaaradaha hawada markay galaan ilaa 1000 feet 2000 feet ilaa 5000 feet ka soo duulaya ayagoo parachute wata kuwa kale ilaa 500 ilaa 1000 feet ayaguna ka soo duulaya waxa muddo ciidamadii Syrianka laftooda in aad loo qalabeeyay hub casriya iyo tababar casri in Russianku maartay uu sameeyay reer galbeedkuna hadda ku soo baraarugeen intay Ukraine ku maqnaayeen iyo sahaniyadii ciidamadii Yuhuudda waxa la tusay ciidamadii Syrianka oo soo bandhigay dowladus aad u khatar badan oo maartay cajaa'ib ah oo la soo qabanqaabiyay oo maartay u moodid maartay inay dagaal ku jiraan ama hawlgal iyo maartay shaqo military oo hameenimo ay qabanayaan waxaan u moodaa arrinkan uu maartay uu dhiirigelin u yahay shacabka Syria iyo dowladooda waxaan u moodaa Syrianku hadda inay ka soo kabsanayaan argagixisada lagu abuuro dalkooda iyo in dalka la rabo in la fududeeyo sida ka dhacday Liibiya iyo Ciraaq iyo Soomaaliya inkastoo arrinkaas uu Ilaahay u badbaadiyay sharkii la damacsanayeen dowladaha reer galbeedka iyo caloosha shaqeeysta ku soo duulay dalkaas in Ilaahay uu ka qabtay masuulka gaashaandhigga dowladda Russia Sergey Shoigu iyo saraakiil sare oo la socotay ayaa booqday jiidda hore ee dagaalka waxayna halkaas ugu tageen saraakiil kale si fiican ayaa lagu soo dhaweeyay wasiirka markuu halka tagay arrin oo aad u la yaabay ayuu arkay waxa la guddoonsiiyay ama la tusiyay wasiirka daawadayaal arrinta cajaa'ibka oo kale waxay ahayd oo la soo bandhigay gawaarida dagaalka ee Sweden dowladda Sweden samayso oo meeshaas lagu soo bandhigay wasiirkana la tusiyay iyo gawaari kale oo Mareykanka ku laga qabtay kuwa Bradley iyo taangiyadii maartay Jarmalka waxyaalo aad fara badan iyo kuwa kale loo qabtay Ingiriiska iyo hub fara badan oo laga qabtay NATO daawadayaal waxaa muddo Russianku hadda inuu ku talaabsanayo guul rogaalcintii Ukrainiinta la filayay inay soo qaadaan inay banjartay oo halkaas ay maartay gobolka ugu dhacay ayaa u moodaa Russiankuna difaaca aad ugu fiican yahay marka la yiraahdo difaaca Ukrainiintina waa la jibiyay reer galbeedka hadda in maartay ay nabadgelyo qaataan iyo in dagaalku sii socdo waxaa danta ugu jira inay nabadgelyada qaataan waayo inuu dagaalku sii socdo Russianka lagama adkaanayo Russianka dhaqaalaha noocyada kala duwan waa haystaan sida saliidii iyo gaaskii iyo raashinkiiba iyo ciidankaba noocyada kala duwan hubka sida baan xogumada nuclearka daawada halka nagala socotaan barta YouTube iyo Facebook @Calas24 post